عليكم maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago habka isaga xiris kartaan tagska facebooka dadku ay kugu soo taageerayaan waxyaabaha postiyada ay soo dhigaan marka tagska si isaga xiri kartaa waxaad tagaysaa facebookaga kabacdi waxaad tagaysaa saddexda line ee isdul saaran ee dhanka midig ee kore ku yaala kabacdi hoos ayaad baxaysaa halka ay ku qoran tahay setting ayaad tagaysaa setting marka uu sidan kugu soo baxo hoos baad u baxaysaa dabeetana halka ay ku qoran tahay timeline and tagging ayaad ku dhufanaysaa kabacdi waxa kugu soo baxaya toddobadan option ba ku soo baxaya oo ku aad muhiim u ah timeline-ka iyo tagging-ka ay kala khuseeyaan waxyaabaha timeline-ka khuseeya tusaalahan kan oo kale wuxuu ku leeyahay who can post on your timeline-kaaga ayaa wax soo dhigi kara marka only media wax cid kale aysan waxba soo dhigin kana only me ka dhigo who can see what other is posting on your timeline kaasna waxaad ka dhigataa only me kan yesta u daawa caadi kan oo kale who can see posts your target in your timeline everyone soo maha kan oo kale waxaad ka dhigataa only me ka dhigo si mode dabeetana waxaad tiraahdaa only me okay kan oo kale isna only me ha ku ahaado markasta labadan hoose ayaa ku yimi waa review-ga iyagu maaha tagging-ka laakiin waa kuwa aad muhiim ah review tags people add to your post before tags appear on your Facebook okay iyadana waxaad ka dhigaysaa on baad ka dhigaysaa tan hoose oo kale review postiga iyadana on baad ka dhigaysaa inta markaad samaysid waxaan rajeynayaa in wixii waxyaabii tagska lagu soo taageerinayo dhan ay ka xirmaan aad baad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.